السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كسو دوادا مركلة برنامجيدي halkan uga barateen Rad Media waxaa jira dad hantiilayaal ah oo uu magacoodu ku xardhan yahay dhiganayaasha iyo joornaalada ganacsiga iyo horumarka kafaalooda waa dad hodan ah oo uu magacoodu saameyn ku leeyahay dadka dunida ku nool in badan oo kamid ah dadka dunida ku nool ayaa u hanqal taagaya in ay magacooda oo kale iyo saameyntooda oo kale yeeshaan dadka qaar ayaa isweydiinaya sida iyo qaabka ay ku xaqiijiyeen guulaha ay ka gaareen shaqada iyo ganacsiga laakiin dab ahaantii wax mucjiso ah maysan samaynin sixir iyo faal toonana maysan adeegsan ee dadaal iyo adkaysi badan ayay ku gaareen heerka ay joogaan waliba intooda badan ma ahan dad ka dhashay qoysas horay hodan u ahaa ama hanti lahaa ee nolosha waxay ka soo bilaabeen sagxadda iyo meel hoose iyo shaqooyin yaryar oo laga yaabo in ay maanta qaarkeen ka faanaan haddaba waxaa muuqaalkan ku soo qaadan doonaa sooyaal kooban oo ku saabsan qaar ka mid ah dadka caanka ah hantidana haysta ee aadka loo garanayo nagama ahan bunbuunin laakiin waa muhiim in qof walba looga daydo waxa uu ku fiican yahay oo aan keenaynin dembi diini ah mar walbana xigmaddu waa baadi ka maqan qofka muslimka ah halkii uu ka helana waa in uu ka qaataa sidoo kale waa muhiim in qofka muslimka ah dunidiisa ugu shaqaysto sidii in uu weligiis noolaanayo aakhiradiisana ugu shaqaystaa sidii in uu hadda dhimanayo oo uu ku camal falaa xadiiskii uu macnihiisu ahaa haddii uu waaga kuu bariyo ha sugin galabtii haddii uu gabalka ku dhacana ha sugin waa beriga saacad walba ku tasho in ay naftan yarta ku dhaafi karto oo aakhiradaada ku dadaal salaad walba oo kaniisana ka dhig sidii inay tahay salaadii kuugu dambeysay xilligii nabiga sallallahu calayhi wasallam muslimiintii muhaajiriinta ee saboolka ahaa ee ka soo hijrooday dhulkoodii ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u tagay markaasay waxay ku yiraahdeen rasuulkii ilaahayow dadkii hantiilayaasha ahaa wixii ajir ahaa oo dhan baa ka qaatay dahaba ahlu duthuri bil ujur sida aan u tukanno ay u tukadaan sida aan u soonnana way u soomaan laakiinse waxayna dheer yihiin waxa weeye in ay xoolahooda sadaqaystaan oo meelaha fiican ay ku bixiyaan saasna ajir ay ku helaan markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri war salaad walba waxaad tirahdaan subxaanallah walxamdulilah wallahu akbar aw kama qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam wanaagana fara dadka maantana ka reeba markaas adinkana waxaad gaaraysaan heer uusan gaari karin qof intaas sameeyey oo kale moogiye haddii xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam muslimiintii oo dhan way maqleen qof walbana wuxuu bilaabay inuu tasbiixdii badiyo salaad walba markaasi dadkii fuqarada ahaa nabiga ku salaabteen oo ay ku yiraahdeen nabiga allow nimanka odayaasha ahaa warkii waa maqleen oo subxaanallah walxamdulilah wallahu akbar ayay salaad walba gadaasheeda ku hayaan markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxba kama qaban karo arrintaasi daalika fadlullahi yutiihi man yashaa taasi waa dheeraad uu qofku doono ilaahay siiyo marka qofka muslimka uu hanti samaysto wanaag fara badan iyo wadooyin wanaagsan ayuu u isticmaali karaa ee ma aan markaad hantida samayso inaad u isticmaalayso sida ay nimankan gaalada oo kaleeto u isticmaalaan intaasi waa xasuusin ee aan horey u galno mawduuca ninka koowaad ee aan soo qaadanayna waa ninka lagu magacaabo Steve Jobs aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Apple C wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah oo xataa kari waayay in ay ka bixiyaan waxbarashada taasoo ku qasabtay in uu gelinna shaqaysto gelinna uu waxbarto ilaa uu sidaasi jaamacad uga baxay waxaa la sheegaa in uu soo aruursan jiray dhalooyinka iyo caagadaha la iska tuuro ee meelaha yaala oo uu ku sii gadan jiray shilimaad yar Steve isma weydiinayno qofka uu yahay maanta waa qofka shirkadiisa safafka dhaadheer loo galo si loo gato wax soo saarkeeda ninka labaad waa Bill Gates waa mulkiilaha iyo aasaasaha shirkadda Microsoft oo lagu tilmaamo boqortooyada softwareada adduunka kuraynimadiisii wuxuu aad ugu fooganaan jiray kombiyuutarka iyo softwareada waxaa la sheegaa in shaqadiisii ugu horeysay ee rasmi ah ay ahayd in uu si boostaalanimo ah uga shaqayn jiray Kongareeska Mareykanka ninka saddexaad waa Chan Kon waa asaasihii abka caanka ah ee WhatsApp-ka ee aadka loo isticmaalo kaasoo bilowgii noloshiisa jaal la soo noqday darxumo iyo duruuf nololeed oo ay haraysay faqri iyo in uu maareyn kari waayo asaasiyaadka nolosha isaga oo 16 jir ah ayuu nadiifiye ka ahaa dukaan yar si uu qoyskiisa uga caawiyo qarashaadka nolosha ee maalinlaha ah buugaag uu ka soo amaahdo maktabadaha ayuu aqoontiisa ku kobcin jiray ninka afraad waa ninka lagu magacaabo Ingvar Kamprad waa ganacsade caan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Sweden waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dadka ugu qaniisan adduunka waa aasaasaha iyo mulkiilaha dukaanka caanka ah ee caalamiga ah ee alaabta guryaha iibiya ee lagu magacaabo IKEA Ingvar asaga oo ah kuray 6 jir ah ayuu bilaabay in uu iibiyo tarakh ama kibriitka waxyaalaha loo yaqaano markii uu 10 jirsaday waxa uu baaskiilkiisa ku wareejin jiray waxyaalaha loo adeegsado qurxinta ciida Christmaska iyo sidoo kale wuxuu iibin jiray kalluunka iyo qalimaanta markii uu gaaray 17 jir ayuu aabihiisii lacag yar oo uu abaalmarin uga dhigay maadaama uu waxbarashada ku fiicnaa
baahna. qarashkaas ayaa u noqday tallaabadii ugu horreysay ee aasaaska shirkadiisa Ikea. Donald Trump waa madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo mid ka mid ah ganacsatada ugu caansan dunida. waxa uu halganka shaqadiisa ka bilaabay mid ka mid ah shirkadaha aabihii oo ahaa maalqabeen ka shaqeeya iibinta iyo maalgelinta guryaha. xilligaas Trump waxa uu soo aruurin jiray lacagta kirada ee guryaha iyo dhismayaasha aabihiis. sidoo kale wuxuu walaalkii ka caawin jiray soo aruurinta dhalooyinka faaruqa ah ee lagu tuuro goobaha qashin-qubka ah si ay dib ugu iibiyaan. halgan dheer oo shaqo adag kadib, Trump waxa uu xaqiijiyay guulo waaweyn. ninka lixaad waa ninka lagu magacaabo Ray Kroc. waa ganacsadaha loogu yeero aasaasaha shirkadda caanka ah ee cuntada fudud iibisa ee lagu magacaabo McDonald's oo inta badan dalalka dunida xarumo ku leh. laakiin yaraantiisii ayuu soo bilaabay halgankiisa shaqo. wuxuu ka soo shaqeeyay dukaano yaryar isaga oo mar wareejin jiray koobabka shaaha lagu cabo ee take away-ga ah ee balastiga ka samaysan. ninka toddobaad waa ninka lagu magacaabo Dewan Shan. waa ganacsadaha asaasay dukaanka dharka ee caanka ee lagu magacaabo Forever. bilowgii halgankiisa, Dewan waxa uu ka soo shaqeeyay shaqooyin dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen waardiye inuu noqday iyo kaalin shidaalka lagu iibiyo oo uu ka soo noqday shaqaale hoose. markii uu soo galay Mareykanka, wuxuu shaqo ka bilaabay maqaayad si uu bil ugu diro qoyskiisa oo aad sabool u ahaa. intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.